geesiyaasha qaranka gaar ahaan ururka 14aad guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal amni xaqiijin ah waxa ay ka fuliyeen wadada isku xirta degmada Marka iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. goobaha sida gaarka ah ay ciidamada howlgalku kaga fuliyeen ayaa kala ah ceel wareegu, buushka, lambar 60, kala caafimaad, macali ismaanka iyo tuulooyin kale oo dhowr ah, waxaana hogaaminayay Kabtan Cali Caato, taliyaha ururka 14aad guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed. intii ay ku jireen howlgalka ayaa ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay wadooyinka ka saaraan miinooyin dhooca dhulka lagu aaso oo ay qawaariijtu la damacsanayeen inay ku waxyeelayaan shacabka adeegsanaya wadooyinkaasi, waxaana sidoo kale la burburiyay goobo u ahaa gambaad maleeshiyada oo ay gawaaridu kaga qaadi jireen lacagabaad ah. Kabtan Cali Caato, taliyaha ururka 14aad guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidamadu beegsadeen goobaha gambaadka u ahaa qawaariijta, isla markaana ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga isu socodka bulshada. waxa uu taliyay Xuseen qorshaha howlgalku lagu guuleystay, isla markaana geesiyaasha qaranka fashiliyeen dhagarro ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan miinooyin nooca dhulka lagu aaso oo ay soo saareen. maalmo ka hor ayay ahayd kadib markii deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu qabtay shir guud oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo ujeedada ugu weyn ay ahayd sidii la isaga kaashan lahaa xaqiijinta amniga iyo ka hortagidda dhagaradaha kooxdan. Aweys Muumin Xasan, Aweys OK, warbaahinta qaranka, Shabeellaha Hoose.